marka kaarka waa la qaadanayaa dadkuna heegan bay ugu jiraan wasiir inay kaarka qaataan insha Allah wixii dardaarana adiga iyo agaasimayaasha guud ee kula socdana waan ka suganaa insha Allah daalaado marka gacmo furan baan wasiir adiga waftiga hogaaminayso ee agaasimayaasha guud aan isku soo dhaweynaya insha Allah waad arki doontaan haddii la bixinkeeda leeyahay xaafadu siday u codayn doonto haddii la hayra sida runtii ugu jira cid kalena xaafadan uma codayso cid kalena codkeeda ma siisa xisbiga kulmiye bay siisaa xaqiiq marka la doonayo laakiin maanta waana lagu dhex jiraa waxa lagu dhex jira dad kale oo doonaya maanta inay maxay tahay codka xaafada ay hantaan heli sameeyaan intaan anagu joogno ee wasiirka iyagu joogo ee agaasimayaasha iyagu joogaan ee xuqaasha iyagu joogto ee maareeyaha iyaga xaafada joogo ee gudoomiyaha iyaga Salmaan Samatar joogo ee namada iyaga guddiga bilicda xaafada joogaan heli maayaan annaga guddiga u xidhanayna annaga guddiga dhiishaas kaga dhigayna codkii laga heli jiray isxaaqinka maanta kulmiye ayaa la siinaya meel kale la siinaya ma jirto ku biyo cabba baan idin leeyahay xisbiga kulmiye mar walba u hiliso mar walba garab istaagto mar walba ay waxa weeye codka ugu badan siiso xaafadeena Sheekh Nuur waxaan ogahay inay tahay xaafadaha dhalinyaro ahaan iyo dumar ahaan iyo dadka ugu cod bixinta badan inay joogaan marka waxaan leenahay abaabul badan baa laynooga baahan yahay waxa weeyaan inta hadhay muddada yar kooban hadhay intaynu gunta disha iskaga dhigno gamcada isqabsado kaarkaas sidii loo qaadan lahaa waxa kale oo jira maxamed awaadan waraxo xildhibaanadii hore ahaa ilaa halkan markii kaarka aanu diiwaangelinta joognay ilaa yoomana haada raggii ka shaqaynayay ee dadka soo gurayay buu ka mid ahaa imikana waa fadhiyaa waxaan leenahay dhammaan barbarkay ka baxdaa waa bakayla qadani Sheekh Nuur ma wax kale inagu xaafad ahaan waxaynu nahay Soomaali oo dhan marka la isu geeyo xaafadda ugu tiro badan waana xaafadda kaliya ee mas'uuliyiinta soo gaadhay ay ka yihiin wasiir Cali Xorxor iyo maayarka caasimadda Hargeysa sawirka xaafadda labadaas ku sibadaysan xukuumadda Soomaaliland waanu qaraacanay waxa aanu sidaa u yeelaynay waa la tartamaya waxa loo tartamayaa sidii looga bartay Sheekh Nuur in ay noqoto xaafadda ugu codka badan leh oo maantana hadhay ay noqoto number 1ka ayaanu u garaacaynay xaafad walba maantana waxaanu leenahay ka ahmiyada gaarka uu kaarku leeyahay waxa aad iyo aad u dhiirigelinayaa in kaarka la wada qaato fariinta weyn ee wasiiradii agaasimayaashu idin farayaana waxa weeyaan dadkiina halkan jooga inaad fariinta qaadaan xaafadaha kula noqotaan cidaan kaarka qaadan ee kaarkoodu halkan yaalo sidii ay u soo dooni lahaayeen loogu fududeyn lahaa oo kaarkaasi aanu inaga wada gubano si fiican loo wada qaato ayaynu aad iyo aad u wada dhiirigelinaynaa aanay inuu kaarka wada qaadano dhamaanteen xaafaduhu way tartamayaan degmooyinku way tartamayaan gobollo way tartamayaan waxa loo baahan yahay xaafadda degmada Gacan Libaax gaar ahaan guud ahaan degmada Gacan Libaax iyo xaafadaha hoos yimaada inay la tartamaan degmooyin kale caasimadda Hargeysa isla markaana kaarkooda soo wada doontaan oo maartaan wax kaare naga noqon waxa weeyaan dadaal hore noo galan haddii kaarkii qaadan weyno dadaalkeena hore iyo ma tacabkii hore oo naga qasaaroobayaa waxaynu ognahay in maxay ahayday aan gawaadhi ay karaynay kaagan kalimka aynu qaadanayna waxa weeyaan waa dadkii soo bedeshay dadkii intii doorashadii hore kadib qaan gaaray ama aan qaadanin iyo dadkii uu ka lumay dadkii hore waa haystaan kaarkoodii xaafadda Sheekh Nuurna aad iyo aad bay u dadaashaa mar walba oo hawlahan oo kala yimaadaan doorkii hore saasoo kale ayay aad uga qayb qaadatay xaafadda in la wada qaato waa dhiirigelinaya dhinac walba looma qaadanayo xisbi kaliya laakiin dhammaan waa in kaarka la wada qaataa qofku waa xaq dastuuri uu leeyahay ciduu doonaa buu dooran karaa waxay u badan tahay sidii halkan laga sheegay xisbiga kulmiye aad baan ugu mahadsantihiin ujeedada ugu weyn halkan isugu nimi waxa weeye in kaararka aynu hore ugu dadaalnay ee tacabku inaga galay aynu qaadano xaafadan waxa ka mid tahay xaafadaha ugu qiimaha weyn ee xisbiga kulmiye codadka ugu badan uu ka helay imikana uu ku hanweyn yahay waxaan jecelahay halkan ku hilinaysaan taariikhda
deegaankeenu dalkan ku leeyahay oo aad wada og tihiin intaa waxa ii raaca oo aan idin xusuusinayaa xaafadani keligeed waxay soo saari kartaa 2 xildhibaan oo gole deegaana waxay soo saari kartaa xildhibaan baarlamaana intaasna ayay ku xidhan tahay inaga inagu xidhan tahay waxaan idinku dardaarayaa 4 shay noo hadhay xaafad aynu iskugu qaraacno aynu iswaraysano aynu isweydiino yaan ka arki qaadan aynu isku baraarujino waar minarka laga yaabo in ama imtixaanaadkii baynu galeynaa ardayda galin hore imtixaankii ku jirta dhalinyarada lagu dhiirigeliyo gelinka dambe inay ka arki qaataan waxaan halkan jecel ugu dambeyn uga mahadnaqo iskuulka maamulaha iskuulka dadweynaha iskuulka waxaan u mahadnaqaynaa shaqaalaha goobta inooga shaqeyn inaynu kaarka qaadano dadka dadweynaha loo sheego dhalinyarada loo sheego dumarka loo sheego waktigii kaarku uu dhammaanayaa kaararka hala qaato laakiin halkan waxaa ku soo beeganay adduunkana dad ubaa lagu kala socdaa waddamadii waaweynaa adduunka ayaa gaashaanbuur raadinaya waxaan uga jeedaa markaa halkaa dadka badanoo xaafadani dee madaxdii waddankay soo saari karaan kaararkoodii waxooda hadday basristaan oo aan goordhow ku tafaraaruqin oonay xisbiyada u qaybsamin oo aanay xildhibaanada u qaybsamin waxay soo saari karaan wax muuqda markaa tafaraaruqa iska ilaaliya wada jira qaaramadii yare hoose iska wata aa wax ku horumarinaysaan ee aa wax ku qabsanaysaan ama kuwa xukuumad ahaanna waa idula shaqaynaa waa ballan insha allahu tacaala wixii aan qaban karno waa qabanaynaa isku tiirsanaada kaararkiina qaata niyadda wanaajiya mustaqbalkuu wanaajiya